gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare qaar kamid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya odayaasha dhaqanka iyo marti sharaf kale ayaa ka qayb galay xaflad lagu soo dhaweynayo gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada waqooyi bari Soomaaliya dhamaantood ayaa kamid ah soo dhaweynta labada mas'uul iyo dhismaha maamulka cusub ee waqooyi bari isla markaana ay soo dhaweynayaan doorashadii dhacday ee lagu doortay gudoomiyaha baarlamaanka waqooyi bari Soomaaliya Dr. Aadan Cabdullaahi oo Xasan iyo gudoomiye ku-xigeenka Amran Axmed Xasan qaar kamid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa madasha ka hadlay markaad isku tashato oo aad adigu isku daydo inaad qabsato oo aad taladaada midayso oo aad isku dhawaato oo aad midowdaan wada shaqaysaan saaxiibo shaqada ku noqotaan danta gaarka meel la dhigay mid guud laga wada shaqeeyo markaasuu najixi karaa maamulka horumar uu samayn karaa qarannimadeena wax macna u sameynaya runtii state-kan cusub oo dhismay oo ku soo biiray state-yada Soomaaliya qaranka Soomaaliyeed macna weyn buu xambaarsan yahay oo aad iyo aad u weyn waxaana ku ammaanayaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha garashada siday u garteen macnaha uu ku fadhiyo state-kani in iyagoo aan cidna ugu roonaanin cidna ugu darnaanayn inay muxuu ahaa ku dhiiradeen oo noo magacaabeen inaan soo dhisno state-kaas waxaad dhisteen maamul aan aaminsanahay inuu yahay oo tiin u yahay midnimada ummadda Soomaaliyeed oo uga duwan yahay maamulada kale ee dalka ka jira waayo maamulo way jireen iyagoo aad u tiro badan maamulkan waa ka duwan yahay maamulada kale wuxuu kaloo ku soo darsaday gudoomiyaha caawa la soo dhaweynayo waqti badan la geliyay waxaad tusaale u tihiin midnimada iyo wadajirka Soomaaliyeed sida waqooyi bariba ay u tahay wax u taagan isku xidhka iyo midnimada Soomaaliya hawaad wadaagtaan labadina meelood waa arkaysaan maanta waxaan halkan u joognaa soo dhaweynta gudoomiyaha iyo wafdiga ballaaran ee uu hogaaminayo ee isugu jira xildhibaano wasiiro aan ku soo dhaweynaynaa meeshan caaway marti kuma tihiin waxaad joogtaan magaaladiinii waxaadna midayseen Soomaali weyn waxaa ogaataan inaad midayseen Soomaali weyn oo Soomaalina ay idin jeceshahay magaaladiina marti kuma tihiin waxaan leenahay soo dhawaada sidoo kale xubno kamid ah golaha wasiirada ee goobjoogka ka ahaa munaasabada ayaa iyaguna soo dhaweeyay gudoomiyaha golaha wakiilada maamulka waqooyi bari iyo ku-xigeenkiisa waxaan rabaa maamul goboleedka waqooyi bari oo ay rag badan iyo gabdho badan dhismihiisa ka soo qayb qaateen ugu horeeyay wasiir Cali Xoosh oo halka kan fadhiya iyo gudoomiye Timo Caday tiimamkiisa shaqooyin badan ay ka soo qabteen guud ahaan dawladda federaalka Soomaaliya iyo maaragtay technical teamkii meeshaas loo diray ay shaqo badan ka qabteen caawa inaan soo dhaweyno annagoo ah bulshadii caasimadda annagoo ah bulshadii Soomaaliyeed annagu ka dawlad ahaan waxaan diyaar u nahay maamulada kale sidaan uga shaqeynay si ka dhow inaan kula shaqeyno maadaama aan wax idin la leenahay ugu dambeyntii gudoomiyaha golaha wakiilada maamulka waqooyi bari Soomaaliya iyo gudoomiye ku-xigeenka ayaa wasiirada xildhibaanada iyo mas'uuliyiintii kale uga mahadceliyay soo dhaweynta diiran ee loo sameeyay runtii waxaan aaminsanahay hadaysan go'aamada ay qaateen ma aan soo gaarnay xilligan iyo annaga iyo geesinimadayada dee ku horumarnay oo maaragtay wax badan ku qabsanay iyo wadajirka ummadayada reer waqooyi samaynta dawlad goboleedka waqooyi bari waxaa saldhig u ah laba qodob kow in dadka deegaankaas uu yeesho maamul ay iyagu leeyihiin oo iyagu doorteen oo aan cid kale maamulin laba in midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed ay yihiin geedka go'an aana laga gorgortami karin ayna iyagu ka mid noqon doonin ama ka mid noqon karin gogoynta Soomaaliya maamulka waqooyi bari Soomaaliya ayaa dawladda federaalka Soomaaliya aqoonsatay sanadkan iyagoona dhistay mas'uuliyiintii hogaamin lahayd maamulka waqooyi bari Soomaaliya Xamdi Cabdullaahi Xuseen warbaahinta qaranka
muqdisho.